Halaas iskaga noolaa ilaa iyo cabaar marka waxay kasii darta lalabada siibo 6 week markuu ii dhamaanaa 7 week aan galay aad iigu darnaa qayrto idin salaam ku soo dhawaada channelkayga videoga hore hadaa fiirsateen waxaan uga hadlay uurkayga 0 ilaa 4 5 kan waa idin sheegay wax saasay ma dareemin 5 weeks ka waa badanaa waqtiyada hablaha dhan ay ku ogaadaan in uur leeyihiin maanta waxaan ka hadlayaa 6 week okay 6 week markaan galay baa waxay ii bilaamatay lalabo walaca markaas ii bilaamay wax dhan ma cuni karin cuntooyinka cunay sawir hadaa idin soo gelin karo waa idin soo gelinaa laakiin igama degayno cunto dhan mashaari oo sokor lahayn oo caano lahayn oo qaleel ah waxba lahayn aan cunay biyaha horta waaba kul laboonaa zaaid biyo dhan ma maqli karin wax saas halaas iskaga noolaa ilaa iyo cabaar marka waxay kasii darta lalabada siibo 6 week markuu ii dhamaanaa 7 week aan galay aad iigu darnaa marka sawiraan ii soo gelinaa 6 week cuniga intuu la egyahay 7 week markii ii bilaamatay waxaan dareemaya walaca inaan kasii daray oo matag wax walba oo cuno haddii rabto liin ha noqoto cambe ha noqoto inaan soo celinayo saa marka zaaid ay ahayd wax walba way dhibayeen wax walba urka wax walba way dhibaysay cream wheatkan aan ku noolaay iyo moos biyo bisa yaraan ku daraaye waan ku qasaayay sidiisa u cunaaye wax walba oo kale haddaan cuno liin ama maangaha haddaan cuno cambaha waa soo celinaye lalaba zaaid ay haysay biyihii waxaas dhan ma arki karin weli sidii yaa lii haayay macnaha bas adiga saas u ahaay 7 week ugu dhamaatay 7 week waxaan soo gelinaa cuniga haluu la egyahay sawirkiisa bas anigoo 6 week waxaan soo arkay walcii xumaay ilaa 7 week aan soo arkay ka cabsanayo oo taagsanayo isdhahay 8 week see kuu noqon doontaa oo cabsanayo adi sidii 8 week ku galay bas 8 week waa fiicnaaybo oo waxaan bilaababa inaan cunto xoogaa cuno oon ka gudbo mushaaridan qaleelka iyo wax saas cuntada aan cunayna waa cunto indho yarbo inta Soomaali maahan noodleska iyo macnaha baastada iyo waxaas cunayay hilib iyo waxaas weli iguma soconin waxyaalaha qaar weli iguma socon laakiin weedka aan tusinayo iyo mushaarida san ku noolaa hada waxa keenaba inaan u sii gudbo macnaha baasto iyo sidii cunay xoogaa iyo hami yar waxa soo galay baastadaas oo xoogaa kala duwan iyo waxaas inaan cuno saas u ahaay oo inta taagsanayay waxay igu dhamaatay 8 week sawiraan ii soo gelinaa 8 week cuniga haluu la egyahay ada 8 week way ii fiicneed adiga cunto inaan cunaa bilaabo xoogaa biyo weli ma cabi karin laakiin ice tea iyo juice iyo waxyaalahaas juiceka orange juice iyo ice tea waxaas inaan xoogaa cabo aan bilaabo bas 8 week adiga saas ugu dhamaatay anoo faraxsan oo macnaha matagin oo walaca wuu ahaayay laakiin zaaidkii sidii 6 week ilaa 7 week ma u ahayn 8 week saas ugu dhamaatay bas 9 week aan galay 9 week marka sidii oo kale anoo cabsanayo taagsanayo baan galay 9 week bas 9 week calaamadaha isku arka maxay ahayd sideed oo kale ahayd wax dhibaato ma arkin walaca wuu haayay laakiin waxyaalaha qaar dhibaayo waa iska ilaalinayay
weli baastadeedaan iskaga noolaay cream wheatkayga macnaha boorashka markaana waxaan bilaabay inaan caano iyo sokor ku darsaayo orange juiceka iyo ice teagayga waxaygaan iska cabaye aaday appointments aan lahay oo markii ugu horeysa aan arko cunugayga sawiraan isku dayaa inaan idiin soo geliyo skaankayga ultrasoundkayga ugu horeeyey aan galay aan aaday 9 week aniga iyo ninkayga iyo gabarteeda cunuga aragnay ultrasoundka cunuga wadnihiisa wuxuu garaacmaya 169 weli wuu yaraay cunuga laakiin farxadana ahayd inaan soo aragno markii ugu koowaad ahayd aan soo aragnay ultrasoundka 9 weekii ahayd markaan galay aday 9 weega taagsigaas oo kale aan ku dhamaystay waa 8 weega camal xooga ahayd sawir kale oo caadi ahna waan ii soo gelinayaa marka shalay aan waxaan galay 10 week shalay 10 week galay bishoo ahayd August 15keeda baa 10 week galay marka weli wax kama sheegi karo hadda dhawaan galay laakiin xoogaa waxaan dareemay inaa xoogaa yar dib u noqdo kale walac xoogaa zaid wax yar xoogaa videogaas waa idiin soo duubi doonaa macnaha 10 week markaan galay waxyaalahan dareemay waa idiin soo sheegi doonaa hadda waxaan dareemaa macnaha in lalabo igama sii yara waxaan u maleynayaa inay iga sii yaraanayso laakiin xoogaa waxaan maleysaa inaa gadgadaal u noqday marka waan arkayaa inay saas sii ahaado iyo inaan kasii fiicnaado next week aan idiin soo duubayaa taynka waxaan ku arkay calaamadaha gabdhahana waxaan rabaa inaan u sheego marka haddaa hadda uur leedahay aabiyaal oo cunugaada aad kala socon kartid aan kulli hoos idiin soo dhigayaa gabdhaha caadadooda rabo inay la socdaan jirkooda bartane aabiyaal aan hoos idiin soo wada dhigayaa marka meeshaas ka wada fiirsada okay aad iyo aad u mahadsantihiin inaa channelkayga soo booqatiin oo videoga fiirsatiin saas videoyaasheeda ula socda aan ku kala faa'iidaysan commentiga karaala ahaada videogayga hore xoogaa mugdi u ahay waxaan rajeynaa kan inaa si fiican u arkaysiin weli waa xoogaa iska walacsanahay marka hayla yaabana xoogaa xamalaysa kiilooyin inay uga dhacay badanaa first trimesterka 3 bilood ugu horeeya badanaa hablaha uur kale kiilooyina ugu dhaco qaarna way ku ciilaan ani waxaa dadka kiilooyin ka dhaco marka caloosheeni tusinaya see tahay wax yar waa la dareemaa inay soo baxsan tahay laakiin inaa uur leh looma maleyna waxaa malaynaysaa inaa cunto iska buuxiye cunto iska dharjiye laakiin way dabarsan tahay waa kaasa waa 10 week aan hadda galay ma fahamtay laakiin qof uur leh liima maleyna qof cunto iska dharjisa liima maleyna marka waa kaasa saasay u egtahay okay aad iyo aad igu mahad celinaya halaasa maanta nala qaybsaday dadka just subscribe ii saaray oo comments ka bixiyay videogayga hore oo ila socdo waa mahadsantihiin dadka igu cusub comment like share subscribe waa fahamsantihiin youtube-ka qaabka u shaqeeyo marka meesheeda aan kasii wada idinkana meeshiina kasii wada see you next time xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa